now. Buuga magaciisa aad ka dareemi kartiin. Buuga maxaa loo jeedaa qiimaha oo waqtigan oo hadda present momentiga qiimihiisa oo ka hadlaya. Marka buuga maxaan u doortay because wax badan buu noloshayda ku soo biiray oo wax badan baa iga bedelay noloshayda oo maxaa kamid ah fikradooyinkayga badan oo ku fikiri jiray inaan wax yar oo dhageysto oo ogaado like fikradan distractionska oo noloshayda inaan la socdo iyo maxaa kale iga bedelay noloshayda like inaan ogaado future waa muhiim waa laga fikiri karaa laakiin future-ka maxaa ka sii muhiimsan waqtigan hadda ku jiro present-ga hadda waqtigan hadda ka faa'iidaysatid future-kaada waa guuleysanaysaa laakiin hadda present moment ka faa'iidaysan future-kaada doesn't like you know come like waqti buu qaadanaya inuu imaado marka buugan saddex qayb aan u kala qaybinaa qaybta ugu horeyso oo maxaan ka hadli doono maxaa waaye writer-ka iyo reason-ka oo buugan u qoray writer-ka horta maxaa waaye Eckhart Tolle baa la dhahaa he's a German writer markuu 29 jir yahay buu buugan oo qoray buuganna muxuu ku qoriyay because asig noloshiisa 29 sano dhan he was in confusion so dhahay mar walba maxaa dareemi jiray fear anxiety stress and all marka buugan muxuu u qoray reason-ka ugu weyn maxay ahayd noloshiis inuu muxuu gaariyo waqti muxuu gaariyo oo noloshiis inuu ka takhaluso or like he just had some suicidal thoughts like you know ma isdishaa depression weyn buu galay marka haddii oo muxuu dareemay you know maskaxdiisa dhexdiisa muxuu ka dareemay something like a thought came to his mind like I hate myself so I cannot live with myself like thoughtkaas camal imaaday like I can't bear myself marka wuu fikiray muxuu rabi inuu kala ogaado I and myself maxaa u kala dhexeeyo marka maalintaas kadib the next day muxuu dhahay fikradooyinkaygii baan fiirsaday and then muxuu dareemay like he can change his life that's the reason he wrote this book buugan actually sheeko ma ahan buugan maxaa waaye it's a self help book maxaan rabaa hadda dhammaantiin inta fariisiin inaa maskaxdiina like I mean thoughtskiina iyo fikradiina inaa ku noqotiin okay so hadda markaan soo jeedinayo inaa fikirtiina rabaa like as fikrad ahaan sheeko ahaan ma ahan marka I tried intan soo koobi karo baan isku dayay waqtigana waa ugu yar yahay marka I tried to mention all the important points buuga chapterka ugu horeeyo like maxaa waaye you're not your mind madaxaada ma tihid means like maalintii kun oo fikradooyin baa maalintii madaxaada imaan karto for example adink maadaama kulli arday tihiin ardayda maxay ku fikiraan like markan jaamacada dhameeyo maxaan ka shaqaysan doonaa beri noloshaysa noqon doontaa oo muxuu ka fikiri kariyaa alla shalay presentationkayga si ka wanaagsan aan qori karay alla saan maxaan u qoray so fikradooyinka waa like it's different some like passive markuu ku fikiro fikradooyinkiisa waxay siinayaan anxiety your guilt your regret future-kana markuu ku fikiro it gives him worry like maxaa walwal buu ku abuurayaa marka writer-ka muxuu sheegayaa you're not your mind maskaxdaada ma tihid thoughtskaada ka fikirtid ma tihid marka maxaa ka wadaa like mindigaada illusion uu noqon karaa like it can be an illusion so mindigaada saa u isticmaashid waaye and your mind can be constructive and destructive constructive in a way when you watch your thoughtskaada fiican markaa raacdid constructive ma noqon kariya laakiin destructive maxaa u noqon karaa markaa negative thoughtskaada oo daba kacdid it can be destructive in that way so marka it means control your mind let your mind use your mind before your mind uses it you like adi maskaxdaada isticmaal inta maskaxdaada ku isticmaalin that's the first chapter can we proceed please thank you marka maskaxdana maxay ku it's connected to the body maskaxda markay body connect ku tahay like maanta waxa ka fikiraysid bodygaada it have an effect in it like for example if you have a positive thought like
fikrad fiican hadaa haysatid oo farxad adig dhan farxad baa dareemaysaa. So hadaa fikrad oo negative haysatidna it turns to be a negativity, like jirkaada baa negative, like you feel negative energy. So we call that emotion. Emotion maxay ka wadaa like energy gaada, like it's the reflection of your mind through your body. Jirkaada baa reflect gareynayo through your thoughts. Your mind means your thoughts. Arinta labaad oo ka hadlay oo aad iigulis maxaa ego. Ego maxaa it's a state or part of the mind maxaa between your consciousness and unconsciousness. Waa fikradooyinkan markay zaa'id u noqdaan, like you have the ego. Ego can be positive. Positive in a way like it gives you adiga personal identity, like you feel dependent, self-dependency, like qof kale maku, you won't depend on someone else, like you live your life according to your terms and that. Marmarna ego markay zaa'id kugu sheego negativity, like it can be negative in a way like you know marmar ad wax ma taqaanid, you don't know something, so qof oo kaa fiican oo aqaano aweydii kartaa, laakiin egoda zaa'id yahay maxaa dhahaysaa qoftaan wax ma taqaanaana karoon, so why would I ask him? That's the ego. So ego-gana marmar it tries to search to complete itself, because complete ma ahan. Some people waxay ku search garayaan in terms of money, in terms of relationship, in terms of social status, I don't know how to say it. Okay, education also. The third point I want to talk is illusion of mind. Maskaxdeena and time-ka mala kala fogay karo, like they are inseparable. In a way like we are always human being markaan nahnay mar walba maxaan ku fikirnaa either the past or the future. Waaba it's our nature, you know, waxaan ka bedeli karna ma ahan. Marka it's not wrong to think about the future, and waa fiican tahay inaad futurekaada kasii fikirtid so that you become successful. Marka writerka muxuu sheegayaa waa ka fikir kartaa futurekaada, plans waa samayn kartaa, goals waa samayn kartaa noloshaada, laakiin don't detach, like don't be so close, like hadday failure imaado in case you become distracted, like you become you know adig dhan waa jajabe. Just keep a distance, like you know adig is hayso and have your purpose in life, your goals, your aims and everything. So he's telling stop creating time, you know, at that time samaysid or mountain. For example, I'll take a small example, like you were supposed to wake up in the morning by 6 a.m. or 7 a.m. Students madama team 7, okay. So maxaa soo kacday 8 a.m. like 2 hours alarmkaada ma kaa kicinin. So what do? Regret? I wish Allah maxaa igu dhac maanta dhan, adiga naftaadii aaba ku qaylna like oh my god 2 hours and daahe and all that. He's telling you know it's good in accept garaysid 2 hours waa daahday. Now what can you do ahead? Momentigan, present momentiga inaad ku jirtida fiican, intaad dhihi lahayd okay waqtigii maxaan sameyn karaa, maxaa waxaa hadda oo waqtigaa joogtid inaad ka faa'iidaystaa fiican. And yeah, move deeply. So always focuskaada noloshaada inay joogtada ahaato why now, because with now you can proceed to the future. Without now there's no future, or there was never past. And can we move? Okay, hadda we talked about the mind. The next part I want to talk is about the inner body. Jirkaada gudihiisa. Wiligiin dhamaanta inta fadhiso maxaa rabaa inaan weydiiyo, did you ever feel your body, like jirkaada ma dareenta gudahiisa? We never get time, you know why? Because all the time maskaxdeena ma ku jirnaa, thoughts baan ku jirnaa, we're always thinking shala maxaa dhacay, beri maxaa dhici doono. We don't know what our body wants, body geeni maxumada, we don't know. So I like this was my favorite part of the book, in which the writer says when you feel your body you're consciousness complete. Why? Consciousness means maskaxdaadii jirkaadii baa one noqonaya, and it gets aligned, you know. Marka align noqoto fully focused aa noqonaya, markaasna creativitygaada waqtigaada ugu fiican aa maraysaa, means productivity shaqadaada waxaada dhan number 1 noqonaya. So tusaale yar aan soo qaadanaya, like for example presentation baa lahaydeen, macalinkii presentation buu indiray, and then
you couldn't do like it, you just have a week to go for the presentation adiga dhan walwal baa ku hay maxaan sameeyay u sameey doonaa and all that. So he's telling present momentiga now hadda ka faa'iideysatid presentation kan it will go better. So inta fikiri leed Allah maxaan sameey doonaa se u sameey doonaa, just do it, take advantage of now, that's it. So caafimaadka waa ku jira marka focuska jirkaaga connection marka la leedahay energy buu sameeyna means your energy just goes through it, aging process ka tan yareena. Okay, even muxuu ka hadlay pain, you know, pain is something we can create and something we can erase. Like pain waa sameey karnaa in a way maanta dhan plastic marka fikirtid xanuun ku qabanayo, for example memories are jiran oo xun oo rabina xasuusitid hada maanta ma xasuusitid xanuunku kugu soo celinaa, you kind of live it again and again, so that pain makes you more painful. Marka there's some other kind of pain maxaa jira unavoidable pain, waa pain oo say amal qof markay dhimatay like gacantaada ma ku jirin qofka iska dhimatay sax, so that kind of pain you can't control it. Marka muxuu dhahaa writerka in such a beautiful way, he says just accept it. Marka accept garaysid painka, it tends to like you know maxaa ka qaadanay strength baa ka qaadanay and you just stop judging yourself. Adigii iyo maanta dhan blamingii iyo maanta dhan oo isdhaysid Allah waxaan haddaan sameey kari lahayn like waxaas dhan baa iska dhaafaysaa. So that's how to erase pain, by accepting it and stop wishing like blame dhan iska dhaafin. I hope you all are enjoying. It's a self-help book, waaye story ma ahan. So aniga you know wax ugu muhiim badan oo aniga oo noloshayda ka bedelay baan ila share gareynayaa, so I hope it's helpful. Marka hadda muxuu ka hadlayaa muxuu dhahaa how to overcome this thoughts kan tirada badan iyo pastigan ku jirnay future ka, how to come. So he takes enlightenment oo isticmaala. Enlightenment means to come to light, like meel mugdi baa ka soo baxday, meel oo maxaa imaanaysa oo light waana run like maskaxdeena it's kind of dark, you know, so lightness maxaa waaye momentigan marka imaanaysa. So how do you come to this moment? He says by two things, you observe and you separate. So how do you separate? Separate means thoughts kaada like maalintii kun thoughts ka badan baa maskaxdaada imaada. So how do you separate, you know, one thought haday imaato you should know when is your next thought, what is it gonna say, like try to inaad dhageysatid maskaxdaada cod ku jiro dhageyso what's the next thought. So markaad dhageysanaysid there's a gap, you know, gapkaas maxaa waaye it shows like you're conscious, alert aa noqotay. awal maskaxdaada baa iska sheekeynaysa like you know it was kind of talking to itself, like when you just know when is the next thought going to come, gap baa imaana and then you're fully alert at that time. Like you know alertness maxaa waaye jirkaadii maskaxdaadii waa isla siman yihiin. For example hadda you know dadka hadda ciyaaro ku jiraan audience-ka marka race leedahay maaragtay jirkaada dhan you're alert, like you feel like you're, that shows like bodygaadii iyo maskaxdaadii aligned ah. Mase when you're giving an exam, or you can say another example marko servantiga oo sugaa masterkiisa alert waa like you know wax madaxiisa dhan like just wuxuu ku fikirayaa masterkaygaas oo imaanaya, that's it. I just want to ask like inaan inweydiiyaan rabaa like is there anyone or habitual waiter I think most of us we are habitual waiter, means like wax baan sugnaa nolosha wax baan ka sugnaa, either maxaan sugnaa shaqo fiican mase relationship fiican mase like we just wait, we keep waiting. Some people they keep waiting that they forget how to start living, you understand? So he's telling us don't wait, just take this moment and do something about it. Like wax la sameey, why do you have to wait? Hadaa sugtid bari waa dhima kartaa, like just do something. So stop waiting, you know. So when we are waiting, actually when we are waiting we are creating a conflict, problem ma maskaxdeena ku sameynuna between our here and now. Like it means waxaan one haystaa laakiin ma ku faraxsani, wax ka fiican baan doonaya waay, like you're not grateful for what you have markaad sugaysid wax ka weyn baa sugaysaa. That's what he tried to tell. So this reduce your quality of life, noloshaada qiimaheeda buu yaraynayaa.
okay, like this is the last chapter of the book, and he says like accept and surrender. Say farxad u helaysa. First of all, you just have to be aware of your thoughts, like free yourself from your mind. maskaxdaada ka dhaxbax. enough inta maskaxdaada ku jirto wax badanta maalintii dhan baa ku jirta. So try to be free from your mind for some time, you know. marka free mind gaad ka noqotid, you kind of feel inner peace baa dareemay, like farxad baa dareemay in its own way, like negative energy waxaas dhan. And yes, when you fully accept waxa haysatid oo noloshaada, you're grateful. So you're grateful for everything in life when you accept what you have. And my last point I want to share is take home message. maxaa raba message kan ina kulligiina qaadatiin, and I hope everyone will understand. Like be fully present. mar walba min hadda ma fadhisino like in this conference room, I want you guys not to just be sitting on the chair. inaad darentiin surrounding you know, derbiyo iyo dad inay la fadhiyaan, like to feel your environment, the people around you, to be present, you know. This time you're present. Future kaada iyo past kaada hilmaam. Be present now at the moment. And yes, to accomplish your goals samayso. qof oo xad fi lahayn nolosha he doesn't succeed. So have purpose in life, lakin don't be too attached to it, like, you know. wax walbo possible waa noqon karaan. Maybe goals you can't reach, but you enjoy the journey. Try to enjoy the journey. For example, aniga arday banahay hadda. Sorry, I didn't introduce myself. I'm doing master thesis ban hadda qoraya, and the thing is always I think is, oh my god, why are you not working? shaqo ma qabsatid, like trainings ka gal, do something. Like, so I tend to forget, like, you know, the journey of thesis writing inan ka faa'iideysanin. So he's saying yes, you will reach your goal. Yeah, beri waa shaqeyna. Yeah, my future is going to be bright. I know that, but just enjoy the thesis writing, enjoy the moment now. adin kulligin arday ma tihiin oo hadda try to enjoy. You're going to graduate. beri waa qalin jabinaysiin hadda, laakiin sanadkaa ku jirtiin intaa ka faa'iideysan kartiin ka faa'iideysto. energyga full time, just enjoy the moment. That's it. And yeah, accept your present reality, and sometimes please connect with your inner body. jirkiina la connect gareeya in a way. For example, maanta fikir badanaa kugu jiray, okay, imtixaan baa laga stress baa tahay, fikir badanaa kugu jiray, just sit and just close your eyes and just breathe in and out. like neeftaada dareen. neeftaada markaad dareentid maskaxdaada it tends to be quiet, you know. wax yar wuu aamusaa, because energygaadi, you're flowing your energy inside your body, and that's very helpful, you know. whenever like in the morning you're walking or you're just, you know, alone markaad tahay, just feel inside your body energyga, farahaada. even you're grateful, you know. ilaahay baa na siiyo oxygen kan jirkeena, you know. mar walba and you breathe in, you breathe out, say alhamdulillah. There's some people who can't even breathe in and breathe out. So bugan I kind of felt like, okay, he's a spiritual teacher wuu yahay, laakiin maxaan ka dareemay, even though he's a non-Muslim, but at least it made me to you know, to connect with my creator. ilaahay inta badan. Sorry, I'm out of time. Last minute. Like I felt like, you know, first thing you have to do, like one of thing I learned is message and kabarte aniga good ahaan is like in the morning marka soo kacdid, like, you know, to get up early morning, to get up every morning, it's a blessing. habeenkii you go to bed, you don't know, maybe waa dhimatay and all. So subaxdii marka soo kacdid, first 5 minutes inta sariirta ka taganin, just be grateful to Ilahi, be grateful to Allah for what He have given and how your day is going to be, like, you know, in a maanta ka faa'iideysan doontid, and the present moment will matter. I hope you all enjoyed. Adam Ali. Thank you for this great event, and inshallah I would recommend you all, qof walba hadii akhri karto buugan maxaa